En als we door een pool uit maamulka xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa ay qariyaan oo habda furnaan ay ugu soo bandhigin hay'adaha sharciga iyo cadaaladda sida uu noo sheegay aabaha dhalay gabadha yar ee dhibanaha iyo dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha oo markii kiiskaasi ay heleen hanjabaadyo la kulmay cabashada ugu dambeysay ee xadgudubka ama faraxumaynta tilmaamaysa ayaa waxay soo ifaxday in loo geystay gabadh yar oo daadeedu ay jirto 13 jir ilaa 14 jir oo lagu magacaabo Caawo Xariir Raage. Aaba Xariir Raage oo ah oday waayeel ah oo danyar ah isla markaasina hore u indhalaa balse tamarrucaad indhaha lagu qalay dhawaan helay xaaska carruurtaasi u dhashayna ay ka xanuunsanayso isla markaasina degan xaafadda State House ee magaalada Hargeysa iyo waxa uu sheegay in inantiisa oo xarunta agoomaha sifa sharciga waafaqsan ugu wareejiyay ay kufsadeen rag ka badan hal qof isla markaasina laga qariyay xadgudubka inantiisa lagu kacay uuna ogaaday iyadoo gabadhiisu ay leedahay uur 5 bilood ah maamulka xaruntaasina aanay waxba u sheegin Aaba Xariir Raage ayaa waxa uu ka cabanaya in maamulka xarunta agoomuhu ay ciqaab uga dhigeen in aanu dib u arkin inantiisa xadgudubka lagu kacay iyo sidoo kale gabadh kale oo xaruntaasi kaga jirtay kuwaasi oo loo wareejiyay meel ka baxsan xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa sida uu cabashadiisa ku muujiyay inan laba hablood iyo inan ayaan geeyay xarunta agoomaha maadaama ay hooyadoodna xanuunsanayso maskaxda ka xanuunsanayso aniguna waan indhalaa aaba markaa ishana mahlan la iigu jeexay bari dhaweyto dar ilaahay ay igu jeexeen waan indhalaa sidaa darteed baan u geeyey aan isidhi halkaasaa dee ay xanaano iyo daryeel ay ku helayaan xarunta dowladda arrintan shabcaan baan maqlay dabadeedii ilaa 20keedii ayaan maqlay 8 bilood ka horna way dhacday waa xaamil imanka iimay sheegin jimce kasta waan u tegayay iimay sheegin shabcaan ilaa 20keedii meelahaas ayaan ogaaday anigu waan tegay xafiiskoodaan tegay dabeedna waxaan idhi inanta tan labada hablood ta weyn weeyaanoo uur bay leedahay ma ogtihiin haabay yidhaahdeen waan ognahay bay yidhaahdeen waxa igu yidhi islaanta caasha weeyaan islaanta xarunta haysata ka xafiiska joogaa wuu ii sheegay 8 nin bay noo sheegtay bay tidhi inantu 8 isku meesha waa xerada gudaheeda xerada ay seexdaan haddama garanaysaa iyana dabadday ka dhacday bay yidhaahdeen waxba kama jiraan dabad waa gudaa xoogagaalanoo ah jimce kastaan u tegayay iminka intii xaaladanu dhacday dabadda uga saartay qolada maamulka way qariyeenba xataa waxay gaadheen inay inanta laga soo rido ilmaa oo dhakhtarku ka diiday ayay gaadhay xerada uunbaa la iiga sheegay meeshoodow waxay yidhaahdeen mid baa qirtay bay yidhaahdeen inta kale may qiran haddama garanaysaa midkanina waa kana dee inanta aan u dhisno ma aqbalin sharcigu miyuu dhigayaa baan sharciga diinta islaamku miyuu dhigayaa nintuu wax kufsaday aadhade haddana la yidhi miyaynaan islaam ahayn baan ku idhi waxaan la socodsiiyey haadii ay khusayn jirtay oo dhan waxba ii dhaqaajin waaye midna waxba waa ii dhaqaajin waaye adeer sidaa daraaddeed waxay igu kaliiftay inaan islaamka aan dee ka sheegto dantayda si cawona ay u hesho xaquuqdeeda anigana wax la igu qabto oo carruurtaa yaryar meesha ugala soo baxo tii kalea halis ku jirta tii yarayda kale inantii kale mar kale aabahani waxa uu dawladda ka dalbanaya inay xilis ka saarto gabadhiisa Caawo oo ay cadaalad hesho isla markaasina laga caawiyo inuu dib u helo carruurtiisii kale shalay baan u tegay iigu yeedho baan idhi waa lay diiday doraataan u tegey iigu yeedho aan arkee waa lay diiday waxaan dalbanayaa dawladda iyo wixii islaam ah arrintaa wixigala qaban karaya meel aan carruurtaa wax isugu urursado iga taageeraya ee islaama mid dibad joog iyo mid guda joogaba waxaan codsanayaa in carruurtaa wax la igala qabto in
caguna cadaaladdeeda ay hesho kuwaa helayna loo mariyo sharcigooda ayaanu codsanaya. telefishanka Honkebel sidoo kale waxaa la hadlay Xamdi Maxamuud Khaliif oo ah la taliye sharci isla markaasina ka tirsan maxadka Horeysan oo kaalmo sharci siinaya aabaha ka cabanaya dhibka gabadhiisa xarunta agoomaha ku jirtay loo geystay. sharci yaqaanada maxadkani waxay warqadaha kiisaskaasi la xidhiidhay u qoreen ciidamada booliiska xafiisyada dawladda ee ku shaqada leh si kiiska xadgudubka ay cawo loo geystay cadaalad loogu helo. taasi oo keentay in dhawaan 5 wiil oo qaarkood la sheegay in da'doodu ay ka yartahay 15 sano loo xidhay xadgudubka cawo loo geystay ee ku dhacay 7 bilood ka hor kuwaasi oo haatan CID-da ku jira sida ay sheegeen qareenada maxadka Horizon. waxa la noo xiriirsiiyay xariir raage oo ah dhibanta aabaheed kiiskii nooga waramay duruufaha ku gadaaman eegnay waxa weeyaan xataa waxaan u raacnay hooygiisa oo aad la yaabayso aad yaabi lahayd maanta hadii aad arki lahayd aad argagaxayso halku ku nool yahay xaaskiisa oo waalan wuxuu noo sheegay inaan meel wax ka bilaabo xataa aanu garanaynin duruufaha ku gadaaman ee dhaqaale iyo maxay helba marka kiiska xariir waa waxyaabaha walaal aanu caawinayno waa sida waana shaqadeeda waana waxyaabaha aanu ka caawino shacabkeena tabaalaysan waxyaabaha soo jeedina waxa kamid ah koow in xarun hogaankii CID-da iyo maxay qaybtii baarista dambiyada in kiiskii ay si dhameystiran u baadho waayo kiiska dadka imika loo haya waxa weeyaan waa caruur ay adag tahay kiiskan waqtiyada u dhacay iyo sida dadku sheegayaan waalidkii iyo maxay dadka xaruntuba in ay xilliga falka geysan karaan. laba walaal waxa kale oo soo jeedina waxa kamid ah in wasaaradahan ay xiriirka shaqo kala dhaxeeyo sida tooska sida dadbanba in doorkoodii ay ciyaaraan oo kiiskan si daacadnimo ay ku dheehan tahay kiiskii iyo baaristiisa inan taayir cawo ay u heli lahayd cadaalad laga wada shaqeeyo in maamulkii xaruntii agoomuhu in uu fududeeyo kiiskii inuu ka qayb qaato baaristii in maxay ahayd sidii loo heli lahaa dadka falka noocaas ee arxan darrada ku kacay in maxay ahayd sharciga la hor keeno. telefishanka Honkebel sidoo kale waxa uu la xiriiray Caashe Qaalib oo ah agaasimaha maamulka xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa balse waxay sheegtay in kiiskaasi uu baaritaan ku jiro oo aanay doonayn inay haatan ka hadasho. yaamahan dhex wareegaysanaysa social media annaku waxba kuma naan darsan sababta aan ugu darsanin waxa weeyaan hay'adihii sharciga ay arrintu hortaala inta ilaahay ka sokaysa inantan ana u hooyo intii halkan joogto anaanay mas'uuliyadaydu garbaheeda saaran tahay annaku wax kama hor dhacayno hay'adaha sharciga ee arrinta gacanta ku haya waxa kaliya aanu ku dadaalaynaa inaanu inanta xuquuq waxay leedahay aanu halkeeda dhigno. dhanka kale telefishanka Honkebel waxa uu la xiriiray wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland oo ay hoos timaado xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa. Maxamed Salebaan Cumar agaasimaha waaxda xog isgaarsiinta ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddu ay sharciga la tiigsan doonto cidii falkaasi kula kacday cawo xariir raage. qadiyada ilanta 13 jirka ah ee dhibaatada ku dhacday ee ka tirsanayd ardayda xarunta agoomaha ee Hargeysa runtii waa mid aanu aad uga xunnahay qadiyadaasi waa mid baaristeedii imika socoto wasaaradahaanna ma jeclin inaanu ka hor dhacno baarista ay wadaan laamaha amniga iyo dambi baarista iyo hay'adaha garsoorka iyo cadaaladdu labadaba hase yeeshee markii warka arintani soo ifbaxay ama uu soo gaaray wasaaradda waxbarashada iyo sayniska wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska mudane Axmed Maxamed Diiriye waxa uu saaray guddi arrintaas soo baadha soo darista dabagal ku samaysa xaqiiqada sidii ay wax u dhaceen iyo arrimihii ku xirnaa labadaba. qodobka labaad waxa uu soo saaray wareegtadaasi go'aamada ku xusnaa waxa kamid ah in ay faraysay dhammaan maamulka goobaha waxbarashada dalka in iyaga oo gudanaya waajibaadkooda shaqo ay muhiimad gaar ah siiyaan ka warhaynta iyo ilaalinta badqabka ardayda inay arday kasta oo tacaddi la kulmay ay warbixintiisa dhaqso ugu soo gudbiyaan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo hay'adaha awoodda sharci u leh in ardaygu helo adeeg caafimaad iyo mid sharci labadaba. waxaanu si adag uga soo horjeednaa in iyada oo looga faa'iideysanayo dana gaar ah caruurta lagula kaco xadgudubkaasi ha noqdo mid jireed ha noqdo mid maskaxeed ha noqdo mid niyad ahaaneed tacaddi kasta oo noocaas ah sida ugu adag ayaan uga soo horjeednaa. waxaanu halkan ka cadaynaynaa in tacaddi kasta oo ka dhana ardayda loo mari doono
dariiqa sharciga ah oo keliya taas macnaheedu waxa weeye waxa reeban in lagu xalliyo habdhaqan kasta oo leexsan oo luminaya daahfurnaanta hanaanka cadaaladeed ee dibanaha taas macnaheedu waxa weeye inaan lagu xallin doonin hanaanka leexsan ee geedka ama aan waafaqsanayn shuruucda iyo maxkamadaha dalka mas-uuliyadda ilaalinta badqabka ardaygu waxa ay saaran tahay maamulayaasha iyo macallimiinta goobaha waxbarasho ee dalka sidaa darteed mas-uul kasta oo qayb ka ah xadgudubka ama tacadiga ardayga ku dhaca ama sameeya dayac maamul waxaa la marin doonaa tallaabo sharciga waafaqsan waalidka inantan dhalay gaar ahaan aabbaha waxaan u sheegayaa inuu ku niyad samaado garsoorka iyo sharciga dalka isla mar ahaantaana uu niyadiisa ka saaro shaki kasta oo ku abuuraa oo ku aadan inuu heli waayo cadaalad aabbahaas haddii uu baahdo kaalmo sharci ama adeegyo sharci oo arrintan ku aadan ama uu weydiimo kale oo u baahan in laga jaahil saaro ama uu taageero kaleba u baahdo waxa u furan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo uu la soo xiriiri karo xilli kasta iyo goor kasta sagal galdeeq axmed honkebel tv hargeysa